haddaanu imaado Soomaaliya waxay u baahan tahay dawladnimo mid maanta jirta dhaanta waa inaan ka ilaalsano maamulo dhul iyo dad ay salahayn u hanqal taagay haddii aan ku meel gaarkii ka baxnay maxaa ay weli kayd iyo kiitan noogu arriminaya waxyaraan ka iraahda marka meesha aanu hadda marayno ama xaaladda dalku maanta ku sugan yahay xaaladda amni markaan ka hadlo Puntland waa nabad markhaati baana ka watiin dhammaanteed cali baan hadda xusay oo ka hadlayay oo yiri meel aad 1000 kilomitir iyo ka badan dad ka timaado gaalkacayo aad ku tagi kartaa Ceergaabo ama aad ka timaado Tawfiiq oo aad aado Caluula adoon ciidina ku wadin cidna aan ka baqayn nabadgelyadaadana cidna aan magan ugu ahayn waxay ka jirtaa Puntland waxaan u baahanahay marka nabadgelyadaasi iyo wanaagaas alxamdulillah inaanu ilaashano ku dadaalo in nabadgelyadaasi aynu ka ilaalino yaan ka ilaalinaynaa ka ilaalsano al-shabaab sidii aan horeba wada jir uga guulaysanay halka laga xusay waa inaan ka ilaalsano jirri qabiil sheeganaya oo hadba meel iska soo madoobeynay waa inaan ka ilaalsano dayday isbaara dhigta halboolayaasheena ganacsi waa inaan ka ilaalsano aw kiraalayaal meel kale laga maamulo waa inaan ka ilaalsano maamulo dhul iyo dad ay salahayn u hanqal taagay haddaan ka hadlo arrimaha dhaqaalaha horumar badan baanu samaynay waxay la tahay caawa laga hadli lahaa waxqabadkii dawladda laakiin waxaan is leeyahay ku-celcelinteedu wax micnaho badan ay subinayso ma jirto waxaan u baahannahay inaan ku dadaalo haddaan dhaqaale la helin nabadgelyadu jiri mayso nabadgelyo laftigeedu waxay u baahan tahay dhaqaale waxaan u baahannahay inaan ku dadaalo horumarinta kaabayaasheena dhaqaalaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalu waxay keenaysaa inaan horumarino wax soo saarkeenna horumarinaa wuxuu keenayaa shaqo abuuris waxay keenaysaa inaan ka maarano tahriib dhallinyaradeenu ka maaranto tahriib burcad badeed iyo wax kasta oo kale oo xun haddaan u imaado arrimaha bulshada waxaa is leeyahay wax badan baa inoo qabsoomay dhan waxbarasho caafimaad biyo iyo inta kale ee soo raacda laakiin waxaan is leeyahay wax badan ayaa dhiman oon u baahannahay inaan ku darno waxaan is leenahay dawladnimadeennu taam noqon mayso inta qoys Puntland ku nooli aysan haysan waxbarasho caafimaad iyo biyo ku filan waqti bay qaadanaysaa laakiin waa in riyadaasi rumowdo sida ugu dhaqsiyaha badan haddaan ka hadlo arrimaha dawladnimada iyo dimuqraasiyadda Puntland waa inay ka guurtaa nidaamka qabaliga ah una guurtaa nidaam dawladnimo oo qof waliba oo codkiisa wax u gooyo waxaa noo qorshaysan in sanad gudihiis ay dhacdo doorashooyinkii dowladaha hoose waxaa loo yaqaan municipal electionska waxaan rajaynaynaa in 2019 loo dareero doorasho dadweyne oo ah hal qof iyo hal cod haddaanu imaado Soomaaliya iyo doorashada 2016 Soomaaliya waxay u baahan tahay isbedel waxay u baahan tahay isbedel waqtigeeda ku dhaca waxay u baahan tahay dawladnimo midda maanta jirta dhaanta
waxaan rabnaa soomaaliya oo sharaf leh, soomaaliya qarannimo istaahisha, soomaaliya oo hadba wiil yar oo caddaanihi uusan ku yeerin. waxaa isweydiin leh haddii aan ku meelgaarkii ka baxnay maxaa ay weli kay iyo kiitan noogu arriminaya. aa isweydiin leh 25 sano oo dowladnimo la-aanihii waa ay nagu filan tahay. waxaan maqli jiray ileen doqoni debir kama dharagto. ma aaminsani inaan doqoma nahay, laakiin sideed baan u dhaqmaynay 25 sane ee lasoo dhaafay. hadda waxaan aaminsanahay in maalin aan dheerayn soomaaliya isbedeli doonto, in soomaaliya ay lugaheeda ku istaagi doonto. waxaan aaminsanahay sida aanu indha xunnahay inaanaan u allala-ayn. waxaan aaminsanahay in karaamadeenni iyo sharafteenni ay dib u soo laabanayso. waxaan soomaaliya u rajaynayaa guul iyo horumar. waxaan leeyahay mar labaad dadka reer puntland hambariyo ilaahayna haynagu gaarsiiyo sanadkan iskale midnimo, wadajir iyo horumar. aad iyo aad baad mahadsantahay.